naxariista hooyo Fartuun Yuusuf Jilaal waxay ahayd hooyo korsanaysa carruur lixa oo iyagu markii horeba ahaa agooman aabahood uu horay u geeriyooday. waxaa qarax 12 bishan Febraayo ka dhacay isgooska Kaase Balbalaare ee magaalada Muqdisho oo lala beegsaday bar kontarool oo ciidamo ay fadhiyeen ay ku geeriyootay Fartuun waxaana dhaawac daran uu ka soo gaaray habeenkaasi gabadheeda Curad Ilwaad Cumar Amiin oo ay wada socdeen si ay u soo booqdaan qof ehelkooda ku jira xanuun isbitaalna ay u wada socdeen. markaasi uu dhaawaca gaaray Ilwaad Cumar hooyadeedna goobta ay ku dhimatay waxaa dhalinyaradii u soo gurmaday kamid ahaa Sunni Careys oo isaga iyo dhalinyarada kaleba ay maqleen dhawaaqa qaraxa markii ay ku soo baxeenna ay goobta ugu yimaadeen hooyadan geeriyootay iyo gabadheeda oo dhaawac daran uu soo gaaray kadib markii ay isbitaal ula carareenna ay miyir doorsoontay. habeenkaasi khadka telefoonka ee isbitaalka Digfeer ayuuna iigu waramay. gabadhii hooyadeed way dhimatay gabadhiina anagoo dhalinyaraha qaadnay oo ula cararnay isbitaal Digfeer noo dhawaay gabadhi maamadii meesha laga qaaday laakiin gabadhi anaga qaadnay dhalinyaradeenna tiimka xaafadda isbitaal Digfeer aan geynay ilaa hadda aan kula hadlaayo waxaan la anahay dadkeedii gabadhii way shoogsaneed oo way naxsaneed dhaawacyo daran waxay ka soo gaareen oo feero u badan dhanka feeraha iyo caloosha waxaan ka kari weynay ama ahleeli weynay inay noo sheegto number ama qof wacno oo qaraabadeeda ah haddana koomay gashay marka gabadha koomay ku jirta isbitaal Digfeer la joognaa. haddaba Ilwaad Cumar Iimaan 2 asbuuc kadib waxaa geerideeda ii xaqiijiyay abtigeed Axmed Yuusuf Jilaal oo la dhashay hooyadeed ina sheegay inay u geeriyootay dhaawacii ka soo gaaray habeenkaasi qaraxaasi si lama filaan ahna qoyskaasi labada qof ay isaga raaceen. gabadha yar iyo hooyadeed Fartuun Yuusuf Jilaal oo ah da'dii iga yarayd waxay u socdeen adeer oo in laga qalay ay u socdeen in ay soo booqdaan marka ayagoo aan gaarin isbitaalkii ay ku booqan lahaayeen adeer walaashii halkaasi ay ku nafbaxday oo maaragtay gabadhi yaraydna waxaa daqiiqado kadib u yimid dhalinyaro ogaaday in ay noosha gabadha sidaasna ay ku qaadeen ay geeyeen isbitaalka 2 isbuuc ay ku jirtay habeenkii la geeyey isla habeenkii waxay martay qalliin oo abdominalka ah ama caloosha oo muddo 5 saac qaatay maalmo kadib 2 maalmood kadibna hadda miskaha ayaa jab jiray dhakhtar ayaa loo raadiyey isbitaalka ma joogin dhakhtar oo tabeediya ah oo lafaha qaabilsan waxaa laga doonay isbitaal kale oo magaalada Muqdisho ku yaala isagana uu kabay marka gabadhii dhibkaas fara badan ay martay khaliimadaas fara badan ay martay. Ilwaad Cumar waxa ay ahayd 16 jir waxa ay ka dhiganaysaa semesterka koobaad mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho waxay ahayd gabar soo hanan qaaday oo aad loogu hanweynaa curada qoyska carruurtaasi 6 ka kooban ee agoomanka ah hooyadoodna ay ahayd Fartuun Yuusuf Jilaal. hooyo Fartuun Yuusuf Jilaal ay laha u raxmadee geerideeda ka hor ayadana waxay ahayd magaalada Jowhar ergadi ka qayb gashay soo xilista xubnaha baarlamaanka maamulka Hirshabelle uga qayb galay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. waxa ay ku geeriyootay magaalada Muqdisho oo dhowr cisho booqasho u joogtay halkaasoo gabadheedana ay jaamacadda ka dhiganaysay. sidaasina waxaa ii sheegay Axmed Yuusuf Jilaal mar kale. walaashii waxay ka mid ahayd xildhibaanadii Hirshabelle dadkii soo dooranayay kontii koodii ka mid ahayd xamar waxay ku soo booqanaysay gabadheeda iyo gabadhan kale jaamacadda dhigatay ay ku soo booqanaysay marka ayadii waaba reer Jowhar ay ahayd midrad marka wuxuu ilaahay keenayna qadartii ilaahay keenayna malaga ilaahay u naxariisto xanuun badan inuu haysaa waa haddana geeri xanuun badan waa carruurta awal agoon ay ahaayeen ay ka tagtay haddana ayadii ilaahay qabsaday hooyadii gabadhiina waa afar 10 maalmood kadib waa ka daba tagtay marka xanuun aad u weyn ayuu nagu qabtay geerida inkastoo ay xaq si lamida Ilwaad Cumar iyo hooyadeed Fartuun Yuusuf oo mar qura qarax waxyeello ay ka soo gaartay si lama filaano degdega ugu geeriyooday waxaa mar kastaba qaraxyada iyo weerarada ka dhaca Soomaaliya meelo kamida ay yihiin dadka shacabka kuwa u nugul oo waxyeellada ugu badan ay soo gaarto gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ah halka ay ku loolamayaan ciidamada dawladda iyo kuwa Amisom Barbara iyo sidoo kale ururka Al-Shabaab oo dagaal adag ayaga kula jira dhinacaasi qaadana weeraro iyo qaraxyo mararka qaarkood soo gaarsiya dad shacab ah oo aanan waxba galabsan waxna aan ka ogeyn dhibaatada dhacaysa
waxyeello aad u weyn.